madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabad lagu howlgelinayo Guddiga Afraad ee Af-Soomaaliga ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay turxaan bixinta, ilaalinta iyo horumarinta afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed maadaama ay udub dhexaad u yihiin midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha oo dul istaagay halgankii dheeraa ee loo soo maray qaabaynta iyo qoridda afka Soomaaliga ayaa ka warbixiyay tallaabooyinka hortebinta leh ee ay dowladdu u qaaday dhanka horumarinta afka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxa ay ku suntan yihiin dad ku adag afka iyo dhaqankooda, halka dalal badan oo dunida la gumaystay ka mid ah laga bedelay afkoodii iyo dhaqankoodii. Afku waa dhaxalgalka ugu qiimaha badan ee ay jiil isu gudbiyaan, waana ammaano ay tahay inaan ilaalino oo horumarino. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay in hirgelinta farta Soomaaliga lagu bixiyay dadaal, maskax iyo maal badan. Waxa uuna kula dardaarmay Guddiga Af-Soomaaliga inay sii ambaqaadaan dadaaladaasi, hormuudna u noqdaan ummadda Soomaaliyeed horumarinta iyo adeegsiga afka Soomaaliga. Dowladdu waxay dadaal badan ku bixisay sidii loo horumarin lahaa afka, dhaqanka iyo suugaanta, taasoo aanu ka soo bilownay inaan dib u soo celinno goobihii lagaga shaqayn lahaa hirgelinta iyo horumarintooda, oo tiyaatarka aynu maanta joogno uu ka mid yahay. Madxafka Qaranka oo aanu isna dib u dhisnay. Munaasabadda oo ka qabsoontay Tiyaatarka Qaranka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xildhibaano, Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Axmed, Gudoomiyaha Akadeemiyadda Gobolka Afka Soomaaliga Mudane Maxamed Daahir Afrax, Gudoomiyaha Akadeemiyadda Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta Mudane Cabdiqaadir Nuur Xuseen, xubnaha Guddiga Afraad ee Af-Soomaaliga, maareeyaha Golaha Murtida iyo Madadaalada Qaranka Abwaan Cabdulqaadir Cabdi Yuusuf iyo marti sharaf kale. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan. Halkani waa channelka Bisla TV oo kala socon doontaan warar sugan, warbixino xasaasi iyo barnaamijyo aad u xiiso badan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin barnaamijka dhalinyarada, haweenka iyo arrimaha bulshada. Daawadayaal aad baad u mahadsantihiin asxaabteena ku xidhan channelka. Sidoo kale waxaanu ka codsanaa asxaabta aan nagu xidhnay inay channelka noo saaraan like-ta, share-ta iyo subscribe-ta. Waxaad nagala socon kartaan barta aan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo Twitter. Ballanteenu mar kasta waa channelka Bisla TV. Madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri sida tan: waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isu keenay munaasabadan quruxda badan. Waxaan u mahad celinayaa cidda noo soo agaasitay, noo soo maamushay iyo guud ahaan dadka nagala soo qayb galay. aad baan idinkaga mahad celinayaa. waxaa sharaf iyo farxad ii ah maanta inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan ama xafladan quruxda badan oo ku suntan hirgelinta Guddiga Afraad ee Af-Soomaaliga. Af-Soomaaligu waa mid ka mid ah tiirarka sugaya jiritaanka ummadnimo ama ummadda Soomaaliyeed, waana afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee u kala baxa maay iyo maxaan ku raahdaa maxaa tiri. 75 yaan halkan anoo caruura xaflad noocan oo kale uga soo qayb galay oo lagu maamuusayo Af-Soomaaliga kadib markii ololihii Af-Soomaaliga macallimiintii iyo dhalinyaradii iyo kulli ka soo noqdeen loo sameeyey riwaayad aad iyo aad u qurxoon oo aan weli sida aan hadda wax u arkayo aan u xasuusto. hadda heestii muusigeeda aad maqlayseen oo ahayd Alif la Kordhabay waxaa qaadi jirta Allah u naxariistee Magan Cali Muudey. Allah u naxariisto jannadiisa, naxariistiisa Allah siiyo. marka heesaha saan oo kale loo qaadayo waa in la sheego heesta
magaceeda cidda qaaday iyo cidda curisay Siciid Saalax ayaa isaguna heestaas curiyey waa nool yahay Allah caafimaad siiyo riwaayadaasi waxay ahayd riwaayad runtii ka turjumaysa shaqadii la qabtay u sameynaysa wacyigelin shacabka Soomaaliyeed in la sii xoojiyo waa xasuustaa Sayid Khalifa nin la oran jiray yaa matalayay iyo Maryam Muudey nin dhintay Allah u naxariistay oo la oran jiray Cabdiraxmaan Maxamed Xasan dhagay yaa iska lahaa riwaayadda laakiin wuxuu dhintay riwaayadii oo ka harsan tahay isbuuciyo marka ilmaan ahaan waa la socday macnaheedu waxaan ahaa dhalinyaro qof dhalinyaro oo dhiiran ama dhiifan yaan ahaa marka waxaas oo dhan waa dhaxal weeye oo u baahan in la sheego heestii kale oo iyaguna ay qaadeen kooxda waa beri noo qaaday oo ahayd afqalaad aqoon tamiya iyaduna waxaa aalifay Allah u naxariisto Ali Sugulle soo saas ma ahayn Allah u naxariisto waxaana qaaday Magool iyaduna Allah u naxariisto iyo Xasan Diiriye marka heesahaas qurxoon markaan qaadayno waa in dadkooda la sheego aan laga dhigin wax cusub oo credit kala siiyo waana wax lagu faano wax aad iyo aad lagu faano weeye waxyaabo badan oo xunxun runtii waa naga dhaceen muddooyinkii dambe oo aafa ku ah foolxumo ku ah magaceennii Soomaaliyeed iyo dhaqankeennii Soomaaliyeed iyo dad ahaanba laakiin waa inaan ku faano waxyaabaha wanaagsan oo awooyaasheen ay sameeyeen waxaa ka mid ah waxyaabo waxaa jira dad badan aysan arag laakiin ay tahay hibe ilaahayna siiyey wanaag ilaahayna siiyey ma aragno waxaa ka mid ah afkeennu waa af Soomaali dadkeennu waa Soomaali dalkeennu waa Soomaali dhaqankeennu waa Soomaali Afrika intaas dowladood oo la gumaystay qaarkood ma aqaan waa khaldami karaa laakiin wadan nala mid ah ma jiro wadan dalkii Soomaali la yiraahdo dadkiisa Soomaali la yiraahdo afkiisa Soomaali la yiraahdo dhaqankiisa Soomaali la yiraahdo oo alxamdulillah diintiina diin islaamay tahay wax naga nasiib badan ma laha laakiin Soomaali intaas waxbay kala sarrifayaano wax ka sii hooseeya yay raadiyaan Afrika markii la gumaystay gumaysigii waa isku jabjabiyay waa isu keenay qabiilaan islahayn dhaqamaan islahayn luqadaan islahayn dad aan islahayn yuu isu geeyey markaasuu weliba magac ka daba geeyey magac u bixiyey intaas kuma dhaafine wuxuu yidhi luqadeedana waa inaad ku hadashaan isku afgarataan intaasna ugama tegine diintii aan idiin keenayna qaati yuu yidhi annaga intaas ilaahay waa naga badbaadiyey mana aragno ilaahina uguma xamdi noqno waxaan u qaadanay wax layska keen waxaan iska leenahay iyo noqon yaan u qaadan marka waxaa loo baahan yahay waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabahan ku faani karno dhaqankeenna ama caadadeenna inaan xoojinno awooyaasheen waxay nooga tageen oo ah inaan ku faanno qaab ay wax isugu gudbiyaan oo xigmad badan Soomaaliya waxaa lagu sheegaa ama lagu magacaabaa wadanka ugu gabayada badan adduunka yaa lagu magacaabaa gabayadaasna waa Soomaali waa murtiyeysan yihiin macna xoogan iyo xambaarsan yihiin waana geeraaro waana heeso weliba hadda masraxan oo kale waxa weeye majaajilana waa lagu daray oo afkii ah marka waxa weeye waxyaabo awooyaasheen ay dhaxal nooga tageen waxay nooga tageen awooyaasheen Soomaali geeska Afrika waxa lagu qiyaasaa 30 milyan yaa lagu qiyaasaa geeska Afrika hal luqad iyo hal dhaqan iyo leeyihiin marka waxa weeye wax lagu faano weeye in dadkii naga horeeyay ee luqadii ay ilaa intaas gaarsiiyeen
africa waa la gumaystay diintii baa laga bedelay afkii baa laga bedelay awooyaasheen waxay u adkaysteen dhib kasta u soo mareen marnaba inaan dhaqankooda la bedelin diintooda la bedelin afkoodana aan la bedelin marka runtii in aan mar walba xasuusnaano oo aan ka fakarno wixii aan ku dari karno si jiilka soo socda iyagana ay u yidhaahdaan awooyaasheen waxbay nooga tageen ma aha burbur inaan uga tageenno iyo dhibaato iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad maaha in aan wax dhaxal reeb ah aan uga tageenno sida taasoo kale ah dowladdaani waxay ku bixisay ama ku bixinaysaa juhdi in la horumariyo dhaqankeenaas afkeenaas suugaanteenaas iyo murtideenna inaan horumarino waxaa qayb ka ah in hooygii hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo wacyigelinta aan soo nooleyno oo aan ku dhisno isxilqaan xooggeena aan ku dhisno awooddeenna aan ku muujinno dadnimadeennii aan tusno caalamka soomaali waa soo noolaatay way soo noqotay rajadeedii way soo noqotay waana shaqaysanaysaa waxna waa qabsanaysaa waxaa weeye in aan tiyaatarkan sidiisii aan ku soo celinno in aan madxafkii qaranka soo celinno astaamihii qaranka iyo halyeyadii soomaaliyeed ileen dad taariikh lahaan nahay oo saan sheegay awooyaal yaan leenahay oo u soo halgamay soomaali inaan luqadda laga bedelin inaan xusno oo aan taalooyin u samayno oo qof walba oo soomaali ah markuu ag maraayo uu yidhaahdo dadkan markay ugu yar tahay maxay ahaayeen taariikhdoodu maxay ahayd oo la baro dadka yaqaanana de waa yaqaanaan oo iyagaa dadka kala baraya marka dowladdeennu oo idinku aad ka tihiin xubno ka tihiin shacabka soomaaliyeedna ay leeyihiin dowladda waxaan u istaagnay inaan horumarinno hiddaheenna dhaqankeenna iyo waxa wanaagsan soomaali ay leedahay oo ay ku faani karto waxaan soo celinay 24 iskuul oo beelaha ahaa yaan soo celinay dib baan u dhisnay 64,000 oo arday ah yaa wax ka barata manhajkii waxbarashada oo af soomaali ku qoran galaaska koowaad ilaa ka 12aad isagana dalkoo dhan yaan gaarsiinay manhajkaasi waa manhaj af soomaali ku qoran oo qof walba oo soomaaliya uu akhrisan karo uuna isbari karo isaga naftigiisa ama isbari karto aqoonta af soomaaliya ay ku akhrisan karaan waxaan qaybinay milyan iyo xoogaa buugaag ah yaan qaybinay oo aan meel walba gaarsiinay taasna macnaheedu waxa weeye inaan xoojinno dhaqankeenna iyo afkeenna inaan xoojinno aqoontu waa sidii la sheegay aqoontu luqad ma laha aqoontu luqad ma laha marka inaan ku xoojinno luqaddeenna oo mar walba aan u helno eray bixinno oo scientific ah oo science ah inaan u helno waxaan rabaa inaan kula dardaarmo guddiga af soomaaliga waxaan rabaa inaan kula dardaarmo akademiya cilmiga fanka iyo suugaanta in ay xoojiyaan inay afka soomaalida xoojiyaan maxaa yeelay waxa weeye waa bilaabatay dowlad kasta oo soomaaliyeed waxa weeye waxaa ka saaran mas-uuliyad in afkaas hodanka aan leenahay oo kumaankunka sano jiray oo aan qorannay in la xoojiyo oo jiilka soo socda ay naga dhaxlaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kula dardaarmayaa inaan gelinno dadaal badan waxaan kula dardaarmayaa inaan gelinno maskax aad iyo aad u fara badan maalna aan gelinno taasna waxay ku suurtoobaysaa in dowladdu ay adag tahay dowladdu iyo shacabkuna inay iswataan dhaqaalo loo huraayo suugaanta iyo afka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo diinteenna suuban dhaqaalo loo huraayo waxayna ku imaan kartaa iyadoo ay jirto dowlad dadku ay raalli ka yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo xoog leh hadday noqoto cudud iyo hadday noqoto dhaqaale wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu